ugu wanaagsan oo runtii qofka wax wanaagsan qabta lagu abaalmariyo waana runtii dhaqan cusub aan hadda bilaabayno inaan abaalmarino qof kasta oo howl wanaagsan qabta inaan abaalmarino qofkii dhibaato sameeya oo dawladnimadeenna dhib ku sameeya isagoo systemka ku dhex jirana ama ku takrifala awoodiisa isaga naftigiisa ciqaabtiisa inuu maro oo ay ummadda arkaan ay kala saaran tahay wanaagga iyo xumaanta waxaan ognahay muddooyinkan soo dhaafnay inaan wixii lagu waday ay ahayd xaal masduur dawladnimo laguma wado dawladnimadu waxay leedahay ammaan iyo wanaag iyo sharaf qofkii ka soo horjeestana wuxuu leeyahay intaasoo kale oo dhanka kale ah oo ciqaab ah marka runtii waa hawl noo bilaabatay waana idinku ammaanayaa shaqadii aad qabateen sidaa u qabanqaabiseen xafladihii quruxda badnaa ee 59 guuradii ee ka soo wareegtay maalintii koonfurta waqooyiga gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed xorriyadda qaateen 26 Juun iyo 1 Julaayo oo maalintii koonfurta ay qaatay xorriyadda iyo israaci iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed sida aan u weynaynay quruxdeedii iyo qiiradii shacabka iyo guud ahaan farxaddii ummadda Soomaaliyeed kulli meel walba ay runtii aan ka arkaynay ee muuqatay hadday tahay gudaha dalka iyo hadday tahay dibaddiisaba waxay la tahay waxa weeye waa dhaqan cusub waxaan aaminsanahay muddooyinkii burburka ahaa la soo maray haddii dadku dhibaatooyin kale iska haysay waxyaabo kale lagu mashquulsanaa waxyaabaha aan isaga mid ka nahay lama qiimeynin waxyaabaha naga halaabana waxa weeye waxyaabaha aan ku kala duwannahay yaan xoojinaynay oo aan jirinba laakiin waxyaabaha aan isaga mid ka nahay oo aan ka midaysannahay waa la iloobi marka runtii 1 Luulyo iyo 26 Juun waa astaan qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhaxayso oo ay tahay inaan weyneyno inaan qurxino in meel walba oo Soomaaliya ay joogto ay ka dhigto wiigaas xorriyadda aan ugu magac darnay waa ogtihiin sanadka soo socda waxaan gelaynaa 60 guuradii waa 60 jirsanay macnaheedu waxay tahay inaan weyneyno oo maanta tii aan sameynay aan 3 jibaar iyo 4 jibaar aan ka sii weyneyno si taas loo sameeyana hawsheeda iyo qabanqaabadeedu waa inay hadda bilaabato oo idinkuna aad tihiin guddigii ka shaqeynayay inaan isu diyaarino 60 guuradaas Soomaaliya oo dhanna meel kastana aan ka dhigno hadduu Ilaahay yiraahdo dadka dibadaha jooga ay ugu horeeyaan safaaradaha noo joogana ay qabanqaabiyaan oo iyagu hormood ka noqdaan oo qof walba oo Soomaali ah hadduu yahay caruur iyo hadduu yahay ciroole isku si loogu dabaaldego macnaha markii aan hadda qabanqaabadeeda bilaabaynana de waxaan ka shaqeynaynaa maalan magaalada xamar bilicdeeda quruxdeeda magaalooyinka kale ee gobollada quruxdooda iyo bilicdooda yaan ka shaqeynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa tii aan sameynay iyo dareenkii shacabka aan aragnay iyo farxaddii ay muujiyeen mid laba jibaaran inay muuqato sanadka bacdi hadduu eebba yiraahdo waa mudantihiin sharafka maanta aad runtii hesheen ummadda Soomaaliyeed hortooda aan idinku siinay aniguna aan idinku aqoonsaday inaad tihiin dad halyeeya ah oo runtii wadaniyiin ah oo si rasmi ah oo wanaagsan uga shaqeeyay inaan muujino maalintan wiigan xorriyadda inay nagu weyn tahay ay runtii taariikhdeenna meel weyn ay uga jirto oo aan ognahay kaliya ma aha maalinta kaliya waxaan xuseynaa sacrifice-kii iyo dhibkii loo soo maray iyada naftigeeda oo dadkii soo maray
intooda badan ay runtii ay dhinteen caruurtooda iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ka dhaxlay wanaaggii inaan tusno taariikhdeenna iyo wanaaggii dadkii hore ee lahaayeen annagana nalaga rabo intii oo kale inaan sameeyno mar labaad waa idin mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen xaqiiqatan waxaad abuurteen wadaniyad cusub yaad abuurteen oo guri walba oo Soomaaliyeed laga dareemayay oo guri walba oo Soomaaliyeed calanka buluuga ah oo xidigta shanta geesood leh guri walba oo Soomaaliyeed lagu hayay macnaha waxaan ka leenahay waxay tahay ilmaha yar ku koraaya maxaa moodaan marka wadaniyadu waa intaas qofka markuu uu ku expose garoobo markuu yar yahay ama environmentiga bee'adu ku nool yahay u arko wax aad u sareeya oo qaran iyo wadaniyad ah qasbiyan ilmahaasi markay koraan waa garanayna meeshii aadayaan hadduu gurigaas guri ku koro uu yahay guri calanka lagu jeexjeexayo dhibaato iyo qabyaalad iyo balaayo iyo looga shaqeynayana dee khasbiyan ilmahaasi ma wanaagsananayo marka waxaan u nahay aasaas inaan dib u soo nooleenno qiimihii iyo wanaaggii ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyay oo astaanta qaranka ahayd inaan soo celinno runtii wixii aad samayseen wax aad u wanaagsan ayay ahayd toddobada beri oo aan u dabaaldegaynay hadday noqoto taalooyinkii fankii lagu soo bandhigayay oo heesaha wadaniyadda lagu qaadayay suugaantii aan soo bandhignay dadkii shacabka ahaa oo la soo saaray labada xafladoodba runtii waxay kicisay shucuurta dadkeenna iyo kor u qaaday macnaheedu waa isku soo dhawaanaynaa macnaheedu waxa weeye midnimadii yaa xoogsanaysa macnaheedu waxaan lahaanaynaa purpose hadaf yaan lahaanaynaa meeshaan u soconana waa kaas inaan xoojinno waxaan isaga mid ka nahay wax naga dhexeeya inaan xoojinno waxa aan ku kala duwan nahayna sidaan hore u sheegay far yar yar aan ku qorno oo aan la sheegin laakiin aan sheegno waxa aan ku midoobi karno waxa naga dhexeeya habeenkii 26 Juun Cismaan Kalluun wuxuu yiri inteenaan qof loo turjumayo ma jiro waa mucjiso ilaahay waa wax wanaagsan ilaahayna siiyay oo mucjiso ah xaqiiqatan laakiin ilaahay qiimaheedii nama tusin adduunyada kale Ingiriis lagu qodbeeyaa maalmahan oo kale ama Faransiis ama Portugiis yaa lagu qodbeeyaa waa xaqiiqo way soo ma fahmin marka qofka Yurub ka yimid iyo qofka dalka u dhashay lama kala yaqaano marka wanaagaas iyo maxaan ku raahdaa waxaas ilaahayna siiyay inaan xoojinaa loo baahan yahay oo aan isaga mid ka nahay sanadkan soo socda insha Allah waxaa la rabaa inaad qorshe dejisaan kow magaaladan inaan quruxdeedii iyo wanaaggeedii ku soo celinno meelaha kale gobolada kale naftigeeda aan gaarno oo 60 markaan gaarno 60 guurada aan gaarno aan ka duwanahay wixii hore la soo dhaafay oo aan ka soo gudubnay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin gudoomiye waa mahadsantahay wasiir magarat aad iyo aad baad u mahadsantahay xafladan sharafta leh oo aad noo soo qaban qaabisay oo runtii aan ku maamuusayno dadkan wanaagooda iyo waxa ay soo qabteen iyo shaqada ay qabteen waa mahadsantihiin wassalaamu